Shiinaha oo ganaax saaraya dadka baraha bulshada uga hadla waxyaabaha aynan aqoonta u lahayn. Ma ogtahay in hadda gudaha dalka Shiinaha laga soo saaray sharci cusub oo dadka baraha bulshada uga hadla waxyaabo aysan aqoon u lahayn lagu ganaaxayo? Haa, xukuumadda Shiinaha waxa ay bilowday qorshe adag oo lagu xakameynayo dadka aan aqoon rasmi ah u lahayn mowduucyada ay ka hadlaan sida caafimaadka, dhaqaalaha iyo sharciga. Xeerkan cusub waxa uu dhigayaa in qof kasta oo doonaya inuu ka hadlo mowduuc sida caafimaadka ama dhaqaalaha uu haysto shahaado ama aqoonsi xirfadeed oo la xiriirta waxa uu ka hadlayo. Tusaale ahaan, haddii aad tahay muuqaal sameeye ama qof saameyn leh misna doonaya inaad talo caafimaad bixiso, waa inaad caddeyso inaad tahay dhakhtar ama xirfadle caafimaad. Haddii kale, waxaad wajihi kartaa ganaax lacageed, xayiraad ama xitaa in la xayiro bartaada baraha bulshada. Sida uu u shaqeeyo xeerka baraha bulshada ee waaweyn sida Douyin oo ah TikTok-ga Shiinaha iyo Weibo, waxa ay hubinayaan aqoonsiga dadka sameeya muuqaalada. Haddii uu qof soo dhigo muuqaal ama warbixin aan la hubin, barahaas ayaa iyaguna laga rabaa inay tallaabo ka qaadaan. Waxaa la sheegay in shirkadda baraha bulshada laftooda la ganaaxi doono haddii ay oggolaadaan warar aan la xaqiijin ama talooyin been ah. Sababta dowladdu u sameysay xeerkan ujeedadu waa inay tahay in la yareeyo wararka been abuurka ah iyo bulshada laga ilaaliyo talooyin khaldan. Waxaa lagu dooday in dad badan oo aan aqoon lahayn ay faafinayaan talooyin caafimaad ama dhaqaale iyo dadka kale dhibaato u keeni kara. Sidaa daraaddeed, dowladdu waxa ay doonaysaa in dadka kaliya ee aqoonta u leh mowduuc gaar ah ay ka hadlaan. Dhanka kale ee laga cabsi qabo dadka dhaliilaya sharcigan waxa ay sheegeen inuu noqon karo hab lagu xakameeyo xorriyadda hadalka. Waxaa laga cabsi qabaa in dowladdu isticmaasho xeerkan si ay u aamusiso dadka mucaaradka ah ama kuwa fikrad cusub wata. Sidoo kale, su'aalo ayaa la iska weydiinayaa: yaa go'aaminaya qof aqoonta u leh mowduuc gaar ah? Sidee loo kala saarayaa? Inkastoo qaar ay u arkaan tallaabo wanaagsan oo lagu ilaalinayo runta iyo aqoonta, haddana qaar kalena waxa ay u arkaan mid xadidaysa xorriyadda qofka. Sidaa darteed, su'aasha weli taagan waa miyay u baahan tahay xeerar adag si loo xakameeyo wararka been abuurka ah, mise waa khatar lagu baabi'inayo xorriyadda hadalka? Faa'iidooyinka xeerkan waxaa laga hortagi karaa faafinta talooyin caafimaad, dhaqaale ama sharci oo aan xirfad lahayn oo been abuur ah, taasoo dadka kale dhaawici karta. Waxayna dhiirigelin kartaa in dadka wax laga qora ama ka hadla mowduucyadaas ay dhab ahaantii leeyihiin aqoon ama shahaado la xiriirta, taasoo ka dhigan in macluumaadkan bulshada lagu gudbinayo si saxan. Waxaa sidoo kale ka qayb qaadan kartaa in internetka la xakameeyo waxyaabaha runtii khatar gelin kara nidaamka ama bulshada guud ahaan. La soco muuqaalka xiga oo nagu soo biir daawade.